السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوديال مeel kasto aad adduunka naga daawanaysaan halkan waa Burhan Janaal qodobada caawa inta uu socdo barnaamijkeenana aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah asqaran oo maanta magaalada Muqdisho lagu sameeyay xildhibaanad Aamina madaxweynayaal mas'uuliyiin dalka xilal sare haatan ka haya oo og cid rasmiga ah ee dishay xildhibaanad Aamina dagaalkii Nimca Joker iyo Daahir Cali oo waji kala yeeshay Yaasiin Haliyey laakaha media iyo dhalinyaro kale oo magac iyo maamuus ku leh baraha bulshada oo karbaashay ama bahdilay Nimca Joker maxaa ka jira in haatan ay socoto waan u dhaxaysa Nimca Joker iyo waliba Daahir Cali intaasi waxay ahaayeen qodobada aad ku daawan doontaan inta uu socdo barnaamijkeena fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka waxa maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho asqaran lagu sameeyay xildhibaanad Aamina kadib markii uu qof naftiba hore ah oo isku qarxiyay goob ay ayada ka ag dhaweyd xildhibaanad Aamina waxa ay ku jirtay gabdhaha xildhibaanada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ma ahan baarlamaanka hadda cusub ee waxa ay ku jirtay baarlamaankii hore xildhibaanadan ayaa waxa la soo sheegayaa in sababo badan loo dilay laakiin sababta ugu weyn ayaa ah in ay dhowr jeer ay ka hadashay deegaan ahaan ama kursi ahaanna ay ku matasho gabar ayadana sidaan oo kale dhowr bilood ka hor lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho walowtan maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu aasay laakiin gabadhaasi oo lagu magacaabay Ikraan Tahliil ilaa ay hadda lama oga halka meedkeeda la geeyay xitaa hooyadeed ma aaminsana in gabadheedii la dilay hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo warbaahinta waraysi siisa ayaa waxa ay sheegtay in dilka xildhibaanad Aamina ay ka dambeeyaan dadkii horay ayada u dilay gabadheeda sababaha ugu waaweyn ee loo dilay xildhibaanadan lagu magacaabo Aamina ayaa ah in ay ka mid ahayd dhowrka shaqsi ee haatan Soomaalinimada iyo waliba cadaaladda ay ku dambeysay waa gacan ka xaq daranaa dishay Aamina Maxamed Cabdi waxaan dareemaynaa inay u dhimatay kiiskii Ikraan ka hadalkiisi oo macnaha si ay baarlamaanka ugu soo laabanin oo uga hadlin oo kiiskii baarlamaanka u geynin aliskaga reebay gabadhaas ehlu khayr waa ehlu janno waa qofay wax ka halaysa malaha qofay wax u dhintay malaha qof ay dhibaataysa malaha muuminada iska aheeday oo dhib la'aan ah cadaaladday ka hadlaysay yaa Aamina maanta loogu duur xulay loogu soo gambaday oo maxaan ku dhahay looga reebay baarlamaanka maadaama oo ajasheedii imaatay maalinteeda ka hor ma dhimanin Aamino laakiin sabab ay u noqdeen in maxaan ku dhahay ay dhibaateeyaan oo maanta kiiskii Ikraan ay hadalkii ay ka hadashay kursigii loo daba dhigayay oo maxaan ku dhahay maalinba maalin gadaal macnaha maleegana loo soo sameeyay si oo macnaha loogu dhibaateeyo nafteedii lagu waayay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadheydii ahayd khaasatan gabadheennii ahaday aniga geerideeda xanuun badan aan dareemaa si gooniya ii taabatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka baxday Aamino qof waxay ahayd qiimo galo qaali ah qof waxay ahayd maxaan ku dhahay sharaf leh waxa kale halkan uga tacsiyeynaa walaalahayga faraha badnaay oo Aamino la dhintay ilaahay qabrigooda ha waasiyo Allah u naxariistay xildhibaanad Aamina oo horay u ahayd macallimad ka soo shaqeysay inta badan madrasooyinka wax lagu baro ardayda ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xildhibaanadan aaskeeda waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee haatan xilalka dawladda haya sida ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo asaga uu ka duwanaa dadka intooda badan ama mas'uuliyiinta kale muuqaal qayb yar oo ka mid ah inta ay socoteen qabanqaabadii aaska muuqaal yar ayaa waxaa la arkayaa ama muuqaalkan hadda idin muuqda ayaa waxaad ka arkaysaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu haysto dhafoorada mas'uuliyiinta ugu sareysa ee haatan xilka dawladda haya sida ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka
iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha nabad sugidda way ogyihiin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa dilka Ikraan Tahliil. siyaasad ahaan markii loo fiiriyo ilaa ay xalay baraha bulshada waxaa wareegaysay in gabadhaani loo dilay arrin la xiriirta siyaasad, taasi oo keentay in ay ayadu ka hadlaysay cadaalad iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed. sidaasna aan la ogoleenba in cadaalad ay dhacdo, rabitaanka dadka Soomaaliyeedna aan waxba laga soo qaadin. dhanka kale waxaa bilihii la soo dhaafay baraha bulshada isku burbursanayay taageerayaal kala matalaya Nimco Joker iyo wariye Daahir Cali Sow. Nimco Joker iyo Daahir Cali Sow ayaa dagaalkooda waxa uu ka bilowday waxyaabo la xiriiray isqabqabsi iyaga khaas u ahaa. Nimco Joker ayaa ah gabar majaajilista ah oo ku nool dalka Mareykanka. Daahir Cali Sow iyo Nimco Joker ayaa waxa ay isku sameeyeen neenaasyo ay iskugu wacaan. Nimco Joker marka ay Daahir ka hadlayso waxay leedahay Daahir Cando. sidoo kale Daahir Cali Sow markuu Nimco Joker isna ka hadlayo wuxuu leeyahay Jugta Culus. waa hees ka mid ah heesaha ugu daawashada badan yahay uu qaaday saygeeda Ilka Case. Nimco Joker iyo Daahir Cali Sow ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhalinyaro baraha bulshada ku jirta oo ka soo kala jeeda labada qabiil ay ka soo kala jeedaan ay wadaan in waan xitaa ay kala dhex dhigaan, maadaama bishii Ramadaan ay fooda nagu soo hayso. bisha Ramadaanna waxa ay tahay qof walba oo islaam uu og yahay waa bil ka duwan bilaha inteeda kale. dhalinyaradaas isxilqaamay ee ku hebta ah labadan shakhsi ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay waawaanta Daahir Cali Sow iyo Nimco Joker ay marayso meel aad u sareysa. taa haddii lagu qancin waayo in ay iscafiyaan oo ay baraha bulshada soo fariistaan, waxay u badan tahay in lagu qancin doono in bisha Ramadaan ee barakaysan ay kala dhacaan ama qofba qofka kale uusan waxba ka sheegin. Nimco Joker oo habeen dhaweed live ku jirtay ayaa waxa ay isku furtay dagaal labaad ama dagaal saddexaad oo kala dhexeeya dhalinyaro ka tirsan kuwa baraha bulshada magaca iyo maamuuska ku leh. magacyadooda waxaa lagu kala magacaabaa Cimraan Laakaha iyo Yaasiin Haliyey. Nimco Joker oo live ku jirtay ayaa waxa ay sheegtay in Daahir Cali Sow ay ula dirirtay Sharma Boy arrinta uu ku sameeyo oo kaliya. Sharma Boyna uusan u soo mahadnaqin oo ayada sida ay rabtaba inuusan u soorin, maadaama uu Sharma daraadiis ilaa ay haatan Daahir Cali Sow ay isku haystaan. Nimco Joker waxa ay sheegtay in dhalinyaro isaga magaciisa view ku raadsanaysa iyo shilimaad ay ka helaan YouTube-ka uu hees ku soo daray magacyadooda. ereyada heesta waxaa ka mid ahaa Yaasiin Haliyey ka baq, Cimraan Laakaha iska eg iyo wax noocaas oo kale ah, inkastoo aan ku fiicneenba dhageysiga heesaha marka anigu go'aan baa gaaray inaydan dhiiqa dambe gelin, because inta aan ku jiro qofkii igeliyo TikTok iska raaxaysanaya, maalin walba hees cusub buu soo saaraya qofka ani dhiiqadan igeliyay. yesterday qofka aan u hiiliyay aan garab istaagay eedadiis aabihiis la dhalatay iskooysku aabihiin baa daraad aniga ii caayaysa oo TikTok ii fadhiday. yesterday markaan wiilka eedada aan u ahay Sharma Boy aan garab istaagay, qofkii ugu horeeyay soo caayay wuxuu ahaa wiil adeerkay dhalay. qofkii ku xigay oo soo caayay eedaday bay ahayd oo Sharmaake eedadiisa. anigana qabiil ahaan waan simanahay, daahan ha ahaato hooyaday oo kale, laakiin qabiil ahaan waxaan nahay laba qof oo ilmo adeer oo siman ayaa i caayaysay. waa qofkii ani aan u hiiliyay oo dartiis dhibkaan oo dhan ii soo gaaray. niman reaction ka bixiya oo lacagta ka sameeya YouTube-ku heeso u soo qaaday. xataa thank you kelmadda la dhaho kama hayo. waa ninka aniga dhibkaan oo dhan aan u maraayo. imagine that. Soomaaliya serious in la hadlaa. qofka aan dhibaatadan oo dhan u maray oo intaanoo dhiba ninkan ii marsiiyay oo intaanoo cay iigu dhacday, intaanoo xumaan iigu dhacday, intaanoo qof ay isugu kay soo raacday dartiis. thank you xataa one day intuu taleefankayga soo wacay thank you eedda macaani Mariin. heesta oo aan raadiyey ayaa waxaan isku dayay bal in Nimco Joker waxa ay ka sheekeynaysay in kale in ay sax tahay in aan soo fiiriyo ama aan soo dhageysto. dhowr daqiiqad ka hor ayaan heesta wax yar oo ka mid ah dhageystay, waxaana ka dhex maqlay ereyada hadda aan idiin sheegayay oo ahaa Yaasiin Haliyey iska ilaali, Cimraan Laakaha ka baq iyo wax noocaas oo kale ah. Cimraan Laakaha iyo Yaasiin Haliyey ayaa live TikTok ah soo galay, waxa ayna si fiican ugu dhageen Nimco Joker. Yaasiin Haliyey waxa uu sheegay in uu yaaban yahay ee arrintan ay ku noqotay lama kaag iyo wax fajiciyay. haddaba waa kana qayb ka mid ah live-koodii
iyo waxa ay ka aaminsan yihiin haatan Nimca Joker. Anagu araweeroto hana caayido sababtoo ah anagu ceeb iyo xumaan lama dooni karo. Anagu ka ay ka baqaysaanu ka adagnahay laakiin iyadu waa naga adagta. niman reaction ka bixiyo ceebihiisa iyo caydiisa ku raaxaysto YouTube ka fadhiya buu heeso u soo qaaday anigana hees uu yiri xerta ka baro muxuu ahaa cilmi ka baro xerta boodhari yaasiin halyey iska bari imraan laakaha iska qari iyagaa kugu riday tamar darri intaasaan heesta kaga jirnaa anaga ma garatay meel kale kagama jirno laakiin annaga oo sababtaas lahayn weligay iyo allahay ma dhicin sharmaarke cabdinaasir hal kelmad xumaan uu leeyahay inaan niri intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa dhacdooyinkii ama wararkii ka dhacay 12 saac ee la soo dhaafay dalkeena Soomaaliya fadlan haddii ay ku tahay markii kugu horeysay waxaan si sharaf la kaaga codsanayaa in aad ku soo biirto barta YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhaan Channel habeen walba ama xilli kasta waxaad kala socon kartaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhaca Soomaaliya iyo waliba caalamka haba u badnaadaane arrimaha bulshada oo kaliya sidoo kale bisha Ramadaan ayaa foodan nagu soo leh insha Allah waxaan rajaynaynaa in barnaamijyo aad ku wada qanci doontaan dadka ku xiran dhammaan barteeda YouTube-ka aan u soo diyaarin doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.